بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيق وعبد القني عبد المكران كنا لودك نوروي خاصة مقالة بيرجن runtii waxaan rabaa halkan inaan kaga faa'iideysto xafladda ciidda oo runtii fursad qaali ah la siiyay fursadaasna ilaahay ku soo ilaa maalis kale waxay siiyay walaalkay bile oo hadda mar saaxiibkii qaali ah oo ku nool magaalada Bergen waxaan mar koobaad inaan u mahad celiyo saaxiibkay bile oo jaaniskan fursadda qaaliga caawi siiyay ciidda marka bile waa mahadsan tahay intaas kadib waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimiinta meel kasta joogaan inaan halkaan ugu dir hambaliyo ciida oo ciid al-adha ah inaan iraado muslimiinta dhammaantiin ciid wanaagsan intaas kadib waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan inaan iraado ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair khaasatan أبيات شرفت بدن وجوا بيرجن يجودها ودك النرويج أنت تقان موقعية أنت أقول أنت بقى وحنا عيد وناسم أنت أسكت محربانا حنبلية الله ولا هو تفضل أو يقالية وكل شيء دافع الدنيا ذا أفريقيا آسيا يوروب في ملك السجوان بحلا هي عيد وناسم iyo sidoo kale familkayga hooyaday walaalahay iyo dhammaan familkayga oo adduunka dhantaasiis kala jooga ayaan rabaa inaan ciidan la qaybsado oo la wadaago iyo marka waxaan leeyahay dhammaan ciid wanaagsan intaas kadib magaalada hadda aan joogo runtii waa magaalo oo wax badan aan ku noolahay asxaab qaalin aan ku leeyahay oo fara badan asxaabtaas oo magacooda halkaan aan kusoo koobi karin walaalkay bile walaalkay maxamed daahir cabdalle muxuu ahaay maxamed yuusuf barow cabdullaahi sheekh cabdullaahi balaag cabdi cali maxamed iyo runtii in badan oo halkaan aan ka sheegi karin oo aad iyo aad u qaali ah oo ay soo dhaweeyay kana mid ah asxaabta halkaan igula nool oo runtii ciise gaaray sharaf ila mudan ayaan leeyahay adika xogtiina iyo familkiina iyo asxaabtiina ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair intaas kadib waxaan fursada inaan u faa'iideysto dad badan oo ahay runtii halkaan caawo jaaniska sii waayeen yimaadaan waxaan rabaa halkaan inaan ka salaamo walaalkay oo iga weyn oo xasan cabdul makran oo ku nool waddanka Hindiya waxaan ku leeyahay adiga iyo carruurtaada ciid wanaagsan waxaan kaloo rabaa hambaliyana u diro dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo runtii maanta si wanaagsan oo sharaf badan u ciideen marka ciidaas farxadaas aan la qaybsan rabaa si gooni waxaan rabaa inaan u qaybsado magaaladan aan ku noolahay oo Norway oo joogo dadka degan oo runtii dad aad u fara badan ah marka hadda waxaan leeyahay intii aan magacooda sheegin iyo inta xasuusto waxaan leeyahay raalahaada maxaa yeelay yani magacyadii haddaan sheego qaar waxaan leeyahay dad badan oo qaali inaan ka tago marka marka qofka samasabkiisa iyo sharaftiisa iyo runtii ciisiisa aan ku leeyahay ciid wanaagsan adiga iyo carruurtaada runtii waxaan rabaa jaaliyadda Bergen ku nool ما فرين ودرو وكسابسن عيدة iyo runtii walaalnimada iyo isku xirka waxa leedahay macnaheeda maadaama ay tahay jaalid ballaaran oo runtii magaaladan si xoogan u degan oo ganacsi ku leh oo maxaadir waxbarta ku jiraan dad qeyb badan ku jiraan ilaa dawladda ku jiro xildhibaano ah waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed qof kasta meeshuu joogo ayuu safiir ka yahay marka jaaliyadda degan magaalada Bergen oo ah caasimadda labaad ee waddanka Norway inay isku xiraadaan walaalnimada ka shaqeeyaan nooha isku doonida laga shaqeeyo yani dadka oo runtii u baahan
in isku xirka iyo walaalnimada iyo Soomaalinimada laga shaqeeyo qofka dhibaataysan laga warhayo caruurta waxa way la xoojiyo isku duubnida iyo community-ga community wax weyn u taraa marka si community ah oo isku xir ah oo runtii adag in la yeesho oo maxuu ahaa qofka sameeyay joogo safiirka noqdo qofka kale wuxuu la qaban karo la qabto dadka maanta noo hay xilka oo runtii aad iyo aad u mahadsan lala shaqeeyo يعني Soomaalnimo oo walaalnimo loo wada shaqeeyo oo runtii la qofkii xilka hayn lagu duceeyo kii insha Allah rabadkiina waxa weyn laga warhayo qof kasta oo maanta dadkan ama Soomaalida wax taraan la soo dhaweeyo oo isku duubni walaalnimo laga shaqeeyo ayaan farlahay jariida kun magaalada Bergen iyo guud ahaan wadankan runtii ku soo shaqeeyay iyo ku hada shaqada hayaan waxaan la amaana mudantihiin waxay wax badan ka qabteen oo runtii dadku ama jariida u tahay ama maxaa ahay qofka soo yahay marka uu shimishii ka sii wada insha Allah waxana waay saarayna soo koobaday la yiraahdo oo runtii ciidaas iyo axwaay salaantaas qiimaha badan aan runtii la qaybsaday inta sarayna soo koobo